kulanti wanaagsan khiyaarta nagu xiran meel kasta oo dunida joogtaan waa 8 bisha Maarso sanadka 2026 waxaad daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay dagaalka bariga dhexe waxyaabo la yaab la ayaa dhacaya markii aad fiiriso xiisadan taagan horta maanta waxay ahayd maalintii sagaalaad dagaalku waxa uu lahaa wajiyo kala duwan oo iska soo horjeeda marka laga yimaado luqadda rasaasta waxa lagu dagaalamaya luqadda warbaahinta iyo afkaarta Trump war ayuu soo saaray maanta isagoo la hadlaya telefishinka ABC News waxa uu yiri haddii dawladda Iran ay soo magacaabaan hogaamiye aynaan inagu raalli ka ahayn isla markaana aan aqbali karin afkaarta Mareykanka iyo xulufadiisa gobolkan ma sii jiri doono dunidana waan ka tirtiri doonaa sida daraadeed shuruudo ayuu meesha keenay oo leeyahay waa qasab dawladahaas inay qaataan waa Iran inay qaato warban arinta ka siinaya Recep Tayyip Erdogan waxa uu leeyahay marka la fiiriyo gantaalaha iyo diyaaradaha droniska ah ee Iran ay nagu soo tuurayso waxay nagu qasbayaan dagaalkeena galno sidoo kale Azerbaijan ayaa kelmadda oranaysa warban ka siinaya inta wada joogno sidoo kale inta barnaamijka idin faaqidaya waxaan eegi doonaa Saudi Arabia oo caawa mayd u yaalo ku geeriyooday gantaalaha Iran ay tuurayso mid kamid ah magaalooyinka Al-Kharaj la yiraahdo Sacuudiga ku taala ayuu gantaal ku absaday Mohammed bin Salman ma halayo mana aamusi karo marka la fiiriyo dhibaatooyinka wadankiisa gaaraya Kuwait waxbay iska celisay oo waxay leeyihiin dhowr gantaal ayaan dhulka soo dhignay diyaarado drone Israa waan burburinay Iraq waxa uu leeyahay xulufada reer galbeedku waxay nagu qasbayaan dagaalka inay nagaliyaan ma Iran bay la dagaalamayaan mise iyaga dagaalamaya Abbas Araghchi oo hadlay wasiirka muraha dibadda Iran waxa uu leeyahay ma doonayno wax la yiraahdo xabad joojin oo Mareykanka waan iska celinaynaa dagaal ayaan diyaar u nahay inaan sii wadno warban iyana arinta ka sii doona inta wada joogno mustaqbalka dagaalkan inuu si degdeg ah u joogsado waa adag tahay qubarada istiraatiijiyaasha waxay tilmaamayaan in kaydadka sawaariiqdu ay maran doonaan laakiin hadda dhinacyada dagaalamaya ay u jihaysteen samaysashada diyaaradaha droniska isla markaana dagaalku uu socon doono waqti dheer qarashka ku bixi doono oo yaraan doono hasaatee dhaqaale burbur weyn adduunka ku dhici doono carabta waxba helay way ay ka sheekeeyaan soo dhawaada dhacdooyinkaasi iyo waradii ugu dambeeyay dagaalka ayaan ku faaqidaya Cabdicasiis Barre wayaan ahay muuqaalka qubanaha maanta iyo caawa ee Barre Showna waa daawanaysaan ikhyaaray Ramadaan wanaagsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waa hadlay waxna uu yiri dawladda Iran haddii ay rabaan in ay nabad ku ladaan oo ay nabadgeliyo ku joogaan waa in ay qaataan inaga damaceena iyo rabitaankeena sida uu yahay waxa uu sidoo kale yiri hogaamiyaha la dooranayo waan inaan talo ku yeelanaa inaga Trump hadalkan aad buu ugu soo celcelinayay isbuucan warbaahinta uu tago haddii ay Axios noqon lahayd haddii NBC ay noqon lahayd haddii ay Fox News noqon lahayd intaaba hore uga sheegay maanta isagoo waraysi siinaya telefishinka ABC la yiraahdo ee ku yaala dalka Mareykanka waxa uu yiri annaga haddii aynaan go'aan ku yeelan go'aaminta hoggaanka cusub ee Ali Khamenei bedelaya dalka Iran waa isdaalinaya ninkaas caddi iyo mugdisi ma noolaan doono oo madaxa laga goyn doona waxa uu noqon doonaa nin isdhiiba oo Mareykanka fahma oo la shaqeysta ama waxa uu noqon doonaa mid luxudka aada sidii saaxiibkii Ali Khamenei oo kale dhinaca kale dawladda Iran arrintan ka jawaabtay si waliba hadal raganimo leh jawaabta ay bixiyeen Iran ninka Abbas Araghchi ahaa wasiirka muraha dibadda ahaa ayaa warbaahinta hor yimid wuxuu yiri horta Trump hadalkiisa waan maqalnay laban ka leenahay
waa mare waxaan leenahay horta Trump oo wadankan Iran la yiraahdaa wax tala ah iyo aragti ah oo aad ku leedahay hoggaankeeda iyo mustaqbalkiisa iyo go'aamintiisa horta ma jirtee taa qabso taasaan ka leeyahay yiri oo hoggaamiyihii waxaad sheegaysaa oo aad tilmaamayso horta taasaan ka leenahay haddii aan reer Iran nahay waa la isku garnaqsanaya markale ayuu hadlay isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri dhowr goor baan maqlaynay iyadoo la leeyahay war dagaalka joojiya miisaska diblomaasiyadda ha lagu laabto Iran ay dagaalkani dani kuuguma jiraan inagoo waliba xalay warshadihii sifaynta shidaalka ee dalka la duqeeyay horta waxaan leenahay yir Mareykanka iyo xulafada Israel inagoo xabad joojin mar rabnay taana qabsada oo dagaalka ayaan diyaar u nahay waan sii wadi doonaa Aragti oo sii hadlaya markale waxa uu yiri doqon waxaad moodaa ereyadiisa iyo sida wax u leeyahay meerisadii gabayga Allah u naxariistay Faarax Nuur ahaa doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan maana midiya lee qarshaal lagu qali doono ninka waxa uu leeyahay warshalaadna qatasheen oo dagaalkii bishii June anagoo idin kula jirna wada hadal ayaad nabad inta diideen aad duqayseen gobanimaan qaadano 12 maalin kadib inagoo raggeena sharafta lahaa raggii yaqaanay nuclearka iyo scientistiyaasha ay meesha ka baxaan iyo qubarada ciidanka ayaan haddana rag iyo xeeshii isqabasho iyo rag istagaala fahmi jirno gogol galnay mar kalaad maanta inagoo gogol ku jirna gantaala nagu bilowday inaad duqayseen marka maana midiya lee qarshaa lagu qali doono Iran mar kale lama qatali doono ee qabsada arintaana oo wax nabad la yiraahdo yaa la inoo keenin ayuu hadalkiisa sii raaciyay haddii aan sii fiiriyo duqeymaha iyo waxa dhacaya iyana waa ka sii xaq jirta maanta xiisaduna waa ka ballaarnay magaalada la yiraahdo Qum governorka halkaasi ka taliya ee dawladda Iran waxa uu yiri maanta diyaaradaha dagaalka ee reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo kayaanka Israel nagama kor dhaqaaqin oo madaxa kor loo qaado waayay oo geedaha laga hoos bixi waayay marka wuxuu yiri duqeymaha dhacayay dhibaatooyin dhimasho dhaawac leh ayaa ka dhashay sidoo kale magaalada Dahraan waxa la duqeeyay goob dadka kaliyaha ka xanuunsan lagu daweeyo laakiin arinta la yaab kale waxay tahay maxay Mareykanku u duqeynayaan goobaha rayidka ah gaar ahaan waxa loo yaqaan albunya taxtiya oo kala kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka meelaha shidaalka lagu sifeeyo maxaa loo duqeynayaa waa waxa Iran oo ay leedahay aniga qoorta dhiiban maayo oo nabad la soo barbariyo mar dambe la ii keenayo wax sheekada waxa ay macar baa cunasda masay waxa ka tagis leh Iran doodaasay miiska soo saareen caawa dawladda Saudi Arabia ahayd 10 baa ku dhacay la yaab leh oo waliba muddo ay ka sheekeynayaan laakiin markii carabta ahaa dhibaatooyinka gaaraya sanadkan sida uga soo kabtaan ayaa waxa uu noqon doonaa mid aad u ballaaran talo maxaa helay waan idin sheegi doonaa ee qadar nasasho ah waayahay dawladda Saudi Arabia maanta 2 qof la dilay dhowr qofna waa dhinteen kadib markii magaalada Al-Qaraj la yiraahdo gantaal dawladda Iran ay soo tuurtay halkaas uu ku habsaday Mohammed bin Salman ninka dhaxal sugaa ka Imaaraadka ahna ra'iisul wasaaraha wadankaasi golaha wasiirada haysta nin aad iyo aad u garasho sareeyo inuu yahay dagaalkana lagu ogaado sababtu waxay tahay ninkan markuu dagaalku socday luuqadda uu ku hadlayo waa mid nabadgeliye ahayd laakiin halka kii ina saayida Imaaraadka ah ee reer Nahyan uu oranaya 24 saac annaga kaybla yooraan nahay dagaalan ku jirnaa laakiin gantaal baa ku dhacay jawaab way bixiyaan Imaaraadka lama hayo laakiin ninka dantiisa gartay wuxuu leeyahay war nabada wax dhaama la waa nabada naas la noogale sheekadiisaas ay noqotay meedkiisana waa aasanaya dhawacyadiisana waa daawaysanaya haddana wuxuu leeyahay war gacantaadan goyn karin waa la dhukadaaye aniga nabad baan u baahanahay Mohammed bin Salman doodiisa saasa loo fasiri karaa Kuwait baalaxooftana waa ka dhamaatay awood buuran ay hayaanna lama arko saacadii la soo dhaafo waxay dhowr gantaalna oo sawaariiqo la soo tuuraan burburinay dhowr diyaaradood oo daroonisana waan ka hortagnay laakiin lama arko daroonay soo rideen ee gantaal ay burburiyeen raadadkiisii waxna lama sheegay waa intaas un bay warbaahinta waa idii ugu dambeysay ka sheegayeen
waayahay haddii aan sii socdo Lebanon nimanka Israa'iil ahaa meeshaas waa iska heleen maanta dhowr tuulo oo dhinacyo kala duwan ku yaalla waddankaasi ayaa la duqeeyay dad fara badanna waa ku dhinteen markay xoogaa joogaan Israa'iil Xayfa wax ku dhacaan oo Beero Sabca wax loo geysto oo Tel Aviv la garaaco oo garoonkii Ben Gurion ay wax ku dhacaan nimankan iska mawaalayaan waxay yiraahdaan meel kasta oo aad dhulka ka eegto ciid ka waayimayst waxaana soo tuuriyeynaya soo Farisiin maaha oo diinta Islaamka haysta ama Shiica ha noqdaan ama Muslim ha noqdaan Sunni waxaana agdagana soo Lebanon maaha waxaan ugu hareeraysan Carab maaha ma kana ka arno marka haddii wax gaaraan baalkan ay ku Carab burburaan ninkii aan awood lahayn oo isdiyaari waaya wuxuu ku dhacay isaga baa aqoonsan doona aan eego war uu soo saaray معهد دراسات كاللي يراهدو Center for Strategic and International Studies oo arrimaha dagaalkan si weyn u la faguray maalmihii la soo dhaafay macadkan waxa uu leeyahay haddii dagaalkan 9 maalin hadda socda xal laga gaari waayo maanta wixii ka dambeeya waxaynu gali doonaa waji ka halis badan kii la soo dhaafay daraasadaha la sameeyay waxa la akhriyay awoodda labada dhinac waxa la fiirshay afkaarta hogaamiyaasha dagaalamaya waxa la eegay dhiiranayaasha ciidamada ee dagaalamaya waxa sidoo kale la taxliiliyay tiknoolajiyada iyo hubka ay adeegsanayaan waxa dib loo milicsaday kaydadka hubka iyo sawaariikhda la hayo kadib waxa lagu dhisay daraasad iyo briefing dadka loo sheegay oo la yaab leh waxa lagu yiri horta adduunka 9 maalin dagaalka boorsamiintu ahaa waxa la gali doonaa maalmo ka halis badan maalmihii la soo dhaafay gantaalaha sawaariikhda meel la iska dhigan doonaa geed drone la yiraahdo oo lacag yarna lagu sameeyo dhul weyn lagu burburin karo meel fogna la gaarsiin karo horta la adeegsan doonaa sidaa daraadeed carabta hadday u bilaabatay oo wixii hore wax ma ahayn farsamadeedina waa lagu dhaqaaqay leeyahay marka Iiraan inay yiraahdaan dagaalka ma joojinayna hal ogaado waa wax meesha ku jira taana arintaas taagan sidoo kale Trump waxa uu leeyahay ciidamo lugta ah oo aan Iiraan u dirno oo nuclearka iyo waxyaabaha Iiraaniyamka ee hodmiyaan ay soo qaadi karaan waa saalan tahay inkastoo maanta Isfahan la duqeeyay oo halkaas xarun nuclear ay ku taala la sheegay dhibaateen la gaarsiiyay lama oga shucaac wali inuu ka yimi Iiraan waxay leedahay in sarkaal ah wuxuu leeyahay wanka Mareykanka la yiraahdo Mareykanka hogaamiye Trump la yiraahdo waana waa soo kaca waran loo sheegaa miya annaga waa gaarno leeyahay waxa nuclear ku sameyn lahayn marka isagoo taygiisa wato warbaahinta hortaagan oo madax arki doona qomboliyad nuclear dawladda Iiraan ay gacanta ugu jiraan doodaas oo ninka qaba ikhiyaaray aad u maasantiin hal maamina YouTube kana subscribe saartaan taxliilka waa noo socon doona wararka waa idin sheegi doona qaabka jihayntan idigu diri doona laakiin xogtan mid ka faahfaahsan ayaan ku sheegay YouTube ka kale ee Barrow Show halka tag soo daawo subscribe na soo dheh aad baad u mahadsantahay